maanta oo ay ciyaarayaan labada koox oo kala ah Azura iyo Iftin Star oo ku ciyaaraya maanta garoonka Cabaadi oo semifinalka waxaan rajeynaynaa insha Allah labadii koox qaado guul iyo gudoomiyaha Jubba gudoomiyaha farsamo yaqaanka ee koobka aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee magaalada Jidda Jubba uu ku magac dheer yahay oona ah tababaraha qaranka jaaliyadda Soomaaliyeed maxaa fariin u diraysaa ciyaartooyda maanta marka ku tartamaya garoonka Cabaadi inay muujiyaan dadaal iyo ficil dheeraad ah sida ay ugu daydaan walaalahooda kale ee isboortiga ciyaartooyda maxaa u rajeynaysaa labada koox haddii la soo baxaan ciyaar wanaag iyo guul labadaba wallahi waxaan rajeynayaa insha Allah haddaan maamulka aqoon-yahaninta aan ka mid nahay waxaan rajeynayaa ciyaartii la soo baxay ciyaar wanaag iyo adkaan inaan siin doono hadiyad gaar ahaan oo isboortiga ka socdo waa waa kubadii ku sii socoto goosha waxa waaye ninka game wuxuu ahaa Shiino ciyaartii oo hadda socoto daqiiqadaheedii hore ilaa hadda waxa la kala marayaa ever waxaan ku weydiinayaa Jubba ma laga yaabaa ciyaartooydan maanta inaan meeshaan ku farfiiqdid ciyaartooyda ugu fiican in ay matalaan jaaliyadda Soomaaliyeed qaranka jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka jira magaalada Jidda wallahi waa rajeynayaa kulle waxa ila muuqato ciyaartooy qaranka soo ciyaartay oo jaaliyadda Soomaaliyeed oo 2 sano ka soo ciyaaray iga muuqato ninka halgamaaga Muuse Goobe oo ahaa ciyaartooydii hore waa mahadsantahay tababare oo ahaa qaranka jaaliyadda Soomaaliyeed gudoomiyaha shuurada Caneekishna u qaabilsan oday iyo gudoomiye wax walba oo Joker uu ka yahay Muuse Goobe maanta ciyaartan halkan ka dhaceyso sidee u aragtaa maxaa ku saadaan leeyahay Azura iyo Iftin Star alxamdulillaah rabbil caalamiin horta gabagabadii iyo gunaanadii waxaa ku mahad gaar ah la dadkii qabanqaabiyey isku soo dabariday oo la dhahayo bahda aqoon-yahanada dadkii abaabulay ciyaartan qabtay oo isku keenay Caneekish haddana qabanqaabiyeen ay koobkan dhigeen haddana goobka wuxuu taagan yahay gabagabo ataagnaadee maanta waxaa dheelaysa الأخير معها سيميفينال وديلاي أزورا إيو إفتين ستار معهم على كل حال الحمد لله رب العالمين قبل يوناندي واسكت ودعدي أنا كان وحان رجينا حتى وحان كتلجنا إن أنا اسكت بردني إن أنا حال نخاني لبضع كوب ملاك كلا سعدا كان سومالي وين إيو أخويا هذا labadooda waxa laga dhigi hal koob oo ka dhigi doona Caneekish gudaheeda insha Allah ciyaaraha soo socota laakiin hadda waxay taagan tahay semifinal kaasna waxa istaagan yahay door 8 alxamdulillah rabbil caalamiin aad u mahadsanyiin dadkii qabanqaabiyay Jubba oo kamid ah Xusni oo kamid ah qabanqaabiyaha Jinaani gudoomiyaha ahaa alxamdulillah aad ayay dhidibadu aaseen waana ku mahadsanyiin شرفت وشرفين وعتانك وعين الحمد لله رب العالمين إذن وما هتتين والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله قفكاس وحوها مدن موسى جوبي فمركا هدنا مثلا إن شاء الله حنسي جود بين عياره أو هل كان كسي سعودو أو ولي سي سعودو إبرة أي دقيقة إمرة يسود دقيقة طوانات هل كان حوى جمهور كي فديو عيارتو خارقات بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan la joogaa halkan gudoomiye Food Cadde oo nagu soo booqday garoomaha Caneekish oo maanta ay ka socdaan laba semifinal tan hadda maanta aan joogno waxa waaye waxa dhilay Iftin Star iyo Azura oo kamid ah xaafadda Caneekish sida uu arki lahayd maadaama adigii aad tahay cukaashi odayaashii isboortiga ee jaaliyadda Jidda waxaan rabnay inaan maanta sida aragtidaada ay tahay ciyaarta ay u socotay inaan maragta ka dhiibatay wixii aragtidaada ah بسم الله الرحمن الرحيم أولا
عرفت معناتها كذا عنده من هذه فهمتها نظامك كل اسلوب هذه فهمتها ما دام والله كوx idinayaan waxay muujiyaan cayaar wanaag ayaan hadda iga muuqtay ilaa iyo hadda intaan arkayo maadaama maanta booqasho kadis aan ku imid booqasho aan ku soo talagalay ay saahad على أي حال waxaan idin leeyahay garabkiina la galo waa dadaasheen ama strategiga si fiican baad wadaan haddana si adkeeya dadaalkiina dadaalku kordhiya ayay idin leeyahay waa mahadsan tahay gudoomiye maxaad fariin u diri laheeday jaaliyadda Jidda sida aad ka warqabtid in ay ka socdaan koobab badan xaafadihii gudiyaal badan ay ka dhisan yihiin ilaa iyo haddana lagu haynin qaran oo mutawaxid lagu yahay oo laga mideysan yahay ilaa iyo hadda uusan ka jirin meesha أولاً وحصداً والله سعداء إن شاء الله وعن رجينا إن دك أخليه ذا أي شقية مسكح ذا أي شقية ولسوي ماذا موحد للنقض أيام كنت لنا عيا معنا مع دام وحدنا وأوان هاي سقطوا وأوان تسعى رجينا إن لتيلو وليس إنه لا يكذبوا دك نحن كل بالله ما تنازل إني سمعيان أيام كل بالله aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane anagana waxaan u rajeynaynaa jaaliyadda Soomaaliyeed inay naqato sida jaaliyadaha kale oo kale tishaad ilaa iyo hadda ma jiro laacib Soomaali ay qaateen dooriga ka socdo ee Sacuudiga dalka Sacuudiga laga dheelo ilaa iyo hadda qof oo Soomaali laga qaato oo ka dheelo ma jiro aan ka ahayn kuwa tishaadiyiintan iyo Nigeriyiintan kolay waxaan u rajeynaynaa dhamaanteena insha Allah inay taas iyo mid ka fiican inay naqdaan ciyaartooyda Soomaaliyeed إن شاء الله بإذن الله تعالى ورجيهنا تاسنا ودعي لهيت مرة لكن وحي ودعي ويسحوجا تفارقة وصومالية حق علي أياك يعني ما دام يتفرغ صنب كي هذا وتقصون تهاي عالمكم على سعادة إن الكبار عن عيارتي دبان عيار بحنتي جارية عن عياري صوبتك كانت هيد ما دام خلاص أنا دحلينا ها أياك يعني إن شاء الله تعالى وين دعي وين الكرج وين إلى نقلان صومالي بدن وعيارتي إن لقاتوان الكرج وين دعسة بإذن الله الكريم إلى دكرة لنقضوا هدنا عيارتي بالله سيجود قلي مدن آدي آد بعد ما هتصنتهاي فرينتاس عاد قدرتي جالية إن شاء الله أي كانوا حكي وجارسين دونا ميل والبو أي جوجان قدياش جالية آدي آد بعد ما هتصنتهاي مدن الله وما هتصنتهاي وما هتصنتهاي halkan waxaan la fadhiyay oo maanta daawanaya ciyaarta semifinalka tababaraha Barkhash kooxda Barkhash mudane maxaa dhihi lahayd aragtidaas u jeeda labadan koox midkii soo baxo oo kugu soo aaday maxaa dhihi lahayd oo fariin ah u diri lahayd maanta hawada bismillaahir rahmaanir rahiim insha Allah labada kooxii soo baxdo oo hortiida ka ciyaarayso insha Allah waxaan jecelnahay inaan ciyaar wanaagsan ciyaarno ninkii guusha maalintaas ku soo aadana inuu koobkan sharafta badan uu gacantiisa ku qaato insha Allah ilaahay hadduu ka raali noqdo adigana maanta dhiirigelin maxaa u diri lahayd ciyaartooyda oo ka fiirsan doona insha Allah Facebooka iyo TV-yada maxaad fariin u diri lahayd ciyaartooydaada hadda aan kula joogin wallahi insha Allah waxaan leeyahay dhamaantood inay fadhiga ka kacaan way sportiga si wanaagsan u ciyaaraan kubadda وقف بنادينك وأسيق فائدة وطهي إن شاء الله وحن ليا سبورتي وحوق على السارة كوحدة برخشنا عايز دير السوق إن شاء الله وعاد كين دونا كوحدة برخشنا إن شاء الله ومقعود كوحدة إذا إنتهي إن شاء الله هدي إيجا يعني هل كان كثير سنة يعني إني سوى ناكسن إسكو جاي زيان وديار جروان ضفر كان أي دافان ضفر كان أي دافان واي عادي هذا وما تسنتهاي خوف كاس وحوقها توبرها كوحدة برخش عادي هذا بعد وما تسنتهاي مدن إبراهيم عادي هذا وما تسنتهاي مدن halkan waxaana la taagan mudane ciise oo maanta uu yahay maalgeliyaha ama ninka iska leh kooxda oo si ah mudarribka kooxda Iftin Star mudane ciise maanta maxaad fariin u diri laheeday dadka halka ka daawanayo sida asxaabta jaaliyada Jidda dhamaan maxaad fariin u diri laheed wallahi alxamdulillah wa shukranillah awal shay ilaahakum hadinaya ثاني شيء waxaa tahniyad u dirayaa jaaliyada Jidda oo ku nool magaalada Jidda Sacuudi Carabiya تهنيد أيها ودريا سنان ونكسن وآدي آد أيها ودريا ثاني شيء وحاك السلام يا ماشان قدوميها محمد حاجي حاك السلام يا ثاني شيء وحاك السلام يا قدوميها وياك علي باشي وحاك السلام يا دمان أنت سبورتك حيسيسي أياك السلام يا وحرجينا إن شاء الله كل الطلبات وحول ما تدير سنة وأسورة يفتن ستار
ورجينا إن شاء الله قول يدون حسن لغير حظ aad الله ودلو aad iyo aad u mahadsan tahay mudane waxaan si aan u jeedo in niyadaada ay jirto garoonka xaggiisa waxaan ku rajeynaynaa guul iyo rayn insha Allah waa mahadsan tahay mudane إن شاء الله بإذن الله السلام عليكم salaam alaykum halkan waxa waaye maxamed debka alantooraha azura maanta maxaa ka dhiiwan leedahay aragtidaada sida ay u socoto hadda ciyaarta kaambiyada dambe markii ay bilaabatay ujeeda mudane والله عيارتي هذه هاي بس لكن في كربلاء بوليسنيسو بس كوحداس كله كوم بوليسنيس ان شاء الله جينا هنا إن شاء الله sida aad ogtahay banooni cad iyo madow inuu yahay maanta waxaan rajeynayaa in sha Allah guul iyo reen idinkoo dadaal dheeraad soo sameeyay oo haddana maanta aad joogtiin sama finaalka ان شاء الله كلنا رجينا ان شاء الله maxaa fariin u diri lahayd kooxda fadhiso finaalka والله وايضا نفترض waa koox isku wanaagsan oo adag balse kooxdii soo bixi doonto waa arki doonaa insha Allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasna wuxuu ahaa alantooraha azura maxamed debka aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane maanta oo nala fadhiyo master awees amiin cabdallah kaaboy halkan joogo gudoomiyaha bartamaha jidda kubadda cagta haddana waxaan dhihi lahay mudane awees maxaad u rajeyn lahayd labadan koox oo ciyaarayo sama finaalka إن شاء الله وحور جهنا عيار ونكسن نكي خاضو نكي صباح وانا اسكهل لكن حن جعلنا أنا خاضو حافظ عن يقش وآد ياد أو جعلنا سين نيدا أيربتو إلهي نو يلو maxaad fariin u diri lahayday guddiyaasha kale oo ka jira maanta jaaliyadda ka mid ah maxaad fariin u diri lahayday والله قد يالك عنيش وحنا قام ما أنت مجرو عنيش واحد شيء سي ولا لودي خلافكي وادميني wax barbalem aan qabna male dadka balaankan waxaan u aniga oo midnimada ay ugu shaqeeyaan inay ugu shaqeeyaan haddana koobna dhiga doon u sheeg hadda koobkan oo laga mideysan yahay oo guddigii caneekish oo hal uu yahay oo adigana maanta oday u tihid maxaad u rajeyn lahayd inaa koobkan dabaaldegiisi iyo waxa maxaad fariin u diri lahayd guddiga caneekish iyo guddiga jaaliyadaba koobkan waxaan ugu shaqeynay sidii loogu talagalay anagishna waxay ugu shaqaysay waalnimadooda wanaagooda dadnimadooda waa muujiyeen hore horta dhibka aan qabna aad fargelin oo banaanka noogu timid maantana fargelintii waa naga baxday alxamdulilah koobka waxaan u rajeeynaa sidii walaalaheeno sharabad leh buwaadi meelaha kale say anagish u heshiis inay u heshiiyaan midnimadooda ay ka shaqeeyaan waalnimadooda isboortiga yaa loo bixin isboortiga ma aha qabiilna ma aha
واسبورتي دد استحقلوا بولشواي يا لو قادنين wax oo bay qabiile waan sodweeyna wixii oo heshiis oggolna ilaa iyo hadda arimo oo waxa jira oo tilaabo dheeraad ah oo Caneekish ay ku dhaqaaqday sida oo hadda xulka Caneekish ay sameysay qaran ahaan oo u mitilo xaafadda Caneekish ee xulkaas goormeed jeceshahay inaad soo banaan dhigtid oo la tartami lahayd kooxaha kale ama kaleeta gudiyaasha kale oo ka dhisan xaafadaha kale isbuucan gudihiisa insha Allah aan soo badbaadinayna waxaan u magacaawanay kabtanka kooxda qaranka Husseini alantoora qaranka waxaan u magacaawanay Injineer Jubba maamul guud waxaan u magacaawanay Ali iyo Xusni oo yaaqna waxaan u magacaawanay in ilmaha ay kala rogaan Muuse Jeelani Hussein Awaas afkii baagay Yusuf Diyeeshe ana midnimada ay ka shaqeeyaan aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasna wuxuu ahaa Awees Amiin oo buraarijan iyo u diraayo hambalyo gudiyaasha meesha ka jiro ee ka dhisan jaaliyada Jidda aad iyo aad baad u mahadsantahay mudana Awees halkaan ay ka socoto rigooradii Azura ماجر وي عيارتوي ساس وبحا وي ماشي نجوم قال ماشي يا مجنون قادر مين قادر بلال انت ما مين مجنون عقب هاي قلاده وي شباب عضله يلا بس والله يا رجل يا ورابي قادر خلقتي والله اوكي يلا ترجع يلا حيلا هذه بس هذه واقف الله صعبتم الله صعبتم خلاص رجاضة waxay ku jirtaa daadir balaq oo hadda rajada ay ku jirto rajadooda waxa waaye inay dhaliyaan way rajadooda hadii laga qabtana waa in la bilaabo mar labaad saasay ku badiyeen kooxda Azura oo hadda final u fadhiso kooxda Ciise Gacmeey oo nasiib diiday aad iyo aad labadii oo toobare oo hadda islaamayo labadii toobare oo gacan isgelinayo توبري اهلا وسهلا يا سعادة الحكم عدل الحكم ماذا برؤيتك المباراة التي خامت في حي عنيكش دينا نبذة المباراة والله الحمد لله اول شيء اشكركم على التنظيم الرائع المباراة كانت جميلة الفريقين قدموا مستوى طيب نشكركم على المستوى نحن نشكرك اولا لانك انت اول مرة التي تحكم في المباراة عنيكش كما اعتقد ونشكرك بالتنظيم والحكم العادل الذي حكمت بين الفريقين اشكرك يا ايها الحكم اشكرك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
daadir oo ku magac dheer daadir balakh oo dhaliyay gooshii guusha lagu qaadi lahaa daadir ra'yida aragtidaada si aa u arki laheeday maanta sayna kula aheeday marka intaadan aad qaabilin kooxda iftin star والله انت كل كوحده waa ciyaaray ciyaarta dhaxsan maraysa hal marka ayeen gambira oo fanaanada khadkeena soo galeen waa ka arsanay laakiin ayeen ma yaraysa laakiin aan ciyaareen waxaan awoodin si soo insha Allah aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wareysigaas aan ka qaadnay Awees Amiin oo ah gudoomiyaha bartamaha Jidda asigoo maanta u mahad celinaya daadir balakh waxaan dhihi lahaa hadda maadaama uu kula joogo ninkan la dhahayo Muuse Goobe oo asigana wato kooxda Barkhash finaalka sidee u rajayn lahayd والله إنك تبغى كوحدة واي أفضل خادم كوحدة واي هدي أنا الخادم وعلى الفريق aad iyo aad u mahadsantahay aad iyo aad u mahadsantihiin khayran ni dhaafay gudoomiye Barkhash aad iyo aad u mahadsantahay halkan maanta waxaan ku wareysanay Maxamed Bimaalo oo maxaa ka dhihi lahayd kooxdan kugu soo wajahan إن شاء الله بإذن الله والله أنا خير الرجاء بإذن الله وينوني كله عدي مدو واي إن كان فينال هذا وإن كان بداية هذا بعد كيك واحد ضعيف يعني كرنا عماد وكوح وقوية فإن شاء الله بإذن الله حرجينا خير كنا كوبت إن شاء الله بإذن الله وستي سنتين maxaad fariin ugu dir lahayd kooxdaada oo maanta waajahayo kooxdii halkan ka soo baxdo maxaad fariin ugu dir lahayd hana khato inay seexdaan dhaqsi inay almeendayaan intii la gaarin koobka إن شاء الله بإذن الله أنا حرجها بالذات يعني مدرب كوحدينا برضو يعني تمرينك وحاس قليها دائما ما قصر خاسي ستار يعني أدى العيال المهلة يعني كل أسبوع ما شاء الله تبارك الله تمرين أسقلين الله وشذا وزي كذا وملعب أسوي جاره وحن كرجينا بإذن الله خير كاس زيادة السي يعني إن شاء الله سوق له هنا زيادة السوق ليه وثاني شيء أنا خير كاس إلى أنا قرال قلي يعني خيل كيس لهانو حوجس كيسنا لهانو كوب كاس بإذن الله المين شبابته سي دخسيهان وحاس حيلكو خاذ لهاين بدل ما يسهر كي بدل لهاين إن شاء الله يكون هادي في الليل إنه يرتاح عن جسمك إنه يريحيان تمرين في عنا يا خاطر aadi aad u mahadsantahay ninkaasna wuxuu ahaa Maxamed Bimaalo oo ah alantoorihi kooxda Maxamed Bimaalo oo asiga isku magac daray kooxdiis aad iyo aad u mahadsantahay Maxamed finaalkii ay tuuranayeen labada koox waa Beri Star iyo Elman Star oo maanta ay kana ku ciyaarayaan garoonkan Taraji يبلو halkaan ay ku guuleysatay kooxda waa Beri ana Xuseen maanta ra'yigaaga ama aragtidaada maxaa ka dhiibi lahayd horta mar hore waxaan kugu hambalyeeynaa sida oo ما سنتهي مستر حسني الحمد لله رب العالمين ما أنت آدم فرح سنة هاي بدل ما عيارت إنه تكون ما طيل لبض ملبه أي كوحها تعادل يقص بحين كدبنا يلقور لو دقي إلى هذيك وقول كسي مرنا حسب ملاين أنت كذا بدي يعني إيش كواحد هذا حقنا كذا بس أزورة مركز أساسا لنا بس برواخة ما أنت آدم فرح سنة aadi aad u mahadsantahay maxaad fariin u diri lahayd gudiyaasha maanta xaafadda ka jiro iyo farxadii aan wada qaybsanaa mise waxa dhihi lahayd nin walbo ما wada qaybsanaa ilaahay idin kana gacan midab un noqonayna gacan wada jirto ilaahay idin insha Allah guul barajayna insha Allah aadi aad u mahadsantahay mudane Xuseen waxaan insha Allah oo wixii oo xiriir ah insha Allah waxaan ku wada xiriiri doonaa maadaama labada dhinacba finaal la fadhiyo in koobkii ay naqdaan waa kina Awees Amiin iyo Xuseen oo maanta insha Allah halkaan isku gacan qaadayo iyo gudoomiye Jeelani halkaan oo joogo Food Cadde maanta insha Allah kolayba waxaan rajaynaynaa insha Allah maadaama Awees adigana halkaan aad joogtid odayaashii ka mid tahay waxaan rajaynayaa insha Allah koobkan oo labada koox soo baxday labada dhinacba ay yihiin koox oo Caneekish ka mid ah in finaalkii laga wada dhigo finaal oo maaragta gudiga oo isku duuban in labada dhinacba marka farxadii iyo wixii oo farxad ahaa in la wada qaybsado aad iyo aad u mahadsantahay Awees adigana waxaan ka rajaynayaa insha Allah
ra'yigaaga inaad ka dhiibatid sida oo waragtaa hiil iyo hooba waxaan u nahay macal food caddeeno macal baad isboortiyeeno anaan qayb galno ay isboorti oo magaalada Sacuudi ka jiro ana gacan aan siino anagna waa guuleystay maadaama ay noo soo baxeen laba fariiq لو عندك حدينا ما تقرون عوس حدينا ما أي شيء مستعد وناي أدي أنا وما حسنتاي أويس خيرا كورجينا يا السلام عليكم ما أنت برنامجك هل كان ونقصد الماضي هل كاس إن شاء الله ونقصد الماضي waxuu nagu soo dhamaaday insha Allah barnaamijkeeni gudiga Caneekish si khayr qaba iyo si nabad qabta waxaan u rajeynayaa kooxaha ka soo baxeen xaafadda Caneekish bashbash iyo barwaaqo in iyo guul iyo reereen iyo gudigoo dhan isku duuban garoomada lagu wada ciyaaray waa halkan taraji iyo garoonka cabaadiyo hadda faada jamhuurkii dadkii dhan ay ka wada tageen halkan oo ku guuleysatay kooxda waa beri oo final soo baxday la ciyaari doonto Maxamed